sheekadeena maanta waa qaybtii labaad ee sawirka wanaagsanista iyo inaan la isdhiibin. markuu guriga soo galay wuxuu bilaabay inuu ka hadlo naartiyo jannada wuxuu ilaahay ku diyaariyey iyo qofkii toobad keena inuu yahay qof aan dembiga uu ka toobad keenay hore u gelin oo hal kelmad oo khamriga ku saabsan muu odhan isagoo arkaya inuu khamriga cabayo. markuu hadalkii dhammaystayna wuxuu yidhi, maanta waan sii soconayaa, laakiin hal wax ayaan ka codsanayaa, inaad iga furtid albaabka markastoon ku imaado oo aan kula sheekaysan karo. haya waan aqbalay. maalintii labaad markuu soo booqday wuxuu ka hadlay intuu maalintii hore yidhi, laakiin markan wuxuu arkay inuu khamri cabista iska soo yareeyey oo intuu farxay ayuu cadar udgoon siiyey kadib uu iska tegay isagoon waxba odhan. dhowr cisho kadib ayuu soo noqday oo wuxuu arkay isagoo ninkii khamri badan cabaya. markuu bilaabay inuu naarta iyo jannada ka hadlana ninkii uu ooyey oo wuxuu yidhi, waxaan ahay nin ilaahay in badan caasiyey oo dhibo dadka, markaa ilaahay iima dembi dhaafayo. markaas si run ah ilaahay aad toobad u weydiisatid uu ka aqbalayaa, oo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi, qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmatillaah. oy macnaheedu tahay waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow, addoommadeydii xadgudbow aga quusanina naxariista ilaahay. maxaan sameeyaa iminka? kac saaxiibo isa soo nadiifi, anigii iyo inan kalon saaxiiba nahay ayaa israacaynaa oo xajkaan tegaynaa, marka aadna nasii raac. anaasana ma ogolaanayaa inaan idin raaco. sidaa aad tahay ayuu raalli ka yahay oo uu rabaa inaad nagu soo raacdid. maanta war fiican ayaan kuu hayaa, inankii saaxiibkay ahaa ayaa iisii kaxaynaya xajka. maasha allah, orod soo diyaar garow, ana gaadhigan kugu sii dhexdidaya dharka. haye waxaynu toos unagu tegi weynay kacbada ee aynu dheelka u tegaynaa. safar dheer baan ka imanay, markaa waa la wadaalan yahay, waxaan nala gudboon inaan nasanno. maynimada wan wanaagsan ee xilligaas raajulleesha tukanaya ayaan soo raacay. xilligii salaad subax bay gaadhay, kaalehan tukanay. quraacdan kusoo qaadanayay halkan sii joog. haye anna soo quraaco, annaguna waan soo bedelinay. anna iminkaan soo bedelanaya oo aan xajka wada tegaynaa. caagada khamriga ee ku dhex jirta gaadhiga maadaa soo qaaday? ayo anaa soo qaaday, waxaan arkay inaan ka maarmayn, markaas waxaan sidhi u soo qaad, markaa bac madow baan kugu soo riday. oo ma cid baa aragtay? may degdeg u soo bedelo, aan xajka tagne. alleelahay salado badan baa ku caasinayay, dadka si fiican lama dhaqmi jirin, dadka waan dhibi jiray, salaada maan tukan jirin, qaraabo ma xiriirin jirin, saaxiibo xunxun baan lahaa. alleelahay wax kuweydiisana inaad dembi dhaafsid. alleeyahay ana baala waxaan kugu qaadayaa inaa saaxiibada xunxun aan iska jaro, khamrigana iska daayo, dadkana diinta aan ugu yeedho. haddaba aniga xajkeeni soo dhammaysanee guryaheena aan kala tegno. iga raali ahaada dhibta aan sannadahaasoo dhan idinkusoo samayn jiray, bakana waan ku soo toobad keenay. waxaan rajaynayaa inaad iga raali noqotaan. waxaan ballan idinku qaadayaa in aan si fiican idinla dhaqmi doono.